Qofka dhintay ee meydka ah wuxuu maqlaa dadka u barooranaya baroortooda iyo kuwa jecel ee u ooynaya oohintooda, wuxuuna maqlaa dhawaqa iyo sagootinta ahalkiisa iyo deriskiisa. Wuxuu nabigeena Muxamed calayhi salaatu wassalaam inagu amray in aan booqanno qabuuraha, maxaa yeelay waxay ina xasuusinayaan aakhirada, waxayna jilciyaan qalbiyada adkaaday, waxayna macaasida iyo dambiyada iyo gafafka waano uga yihiin kuwa caasiyey nafafkooda. qabuuruhu waxay leeyihiin haybad, mugdigeeduna wuxuu leeyahay cidloosho. Booqda qabuuraha, maxaa yeelay waxay dadka xasuusiyaan aakhirada. meydku wuxuu maqlaa oo uu heshadaa dadka agagaarihiisa jooga. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل وهو يقول: يا أهل القليب، يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا أمية بن خلف، ويا أبا جهل بن هشام. فعدد من كان منهم في القليب: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال المسلمون: يا رسول الله، أتنادي قوما قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. waxaa Anas ibnu Maalik radiyallahu canhu laga wariyey in uu yidhi: samica asxaabu rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam, waxay saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wassalaam maqleen rasuulallaahi sallallahu calayhi wasallama min jawfi lleyli wahuwa yaquul, rasuulkii alle sallallahu calayhi wasallama oo habeenbarkii odhanaya: yaa ahla alqaliib. qaliibku waa ceelkii lagu guray meydadkii mushrikiinta dagaalkii Badar kadib. wuxuu rasuulku calayhi salaatu wassalaam odhanayay: yaa cutbata bnu rabiica, wayaa shaybata bnu rabiica, wayaa umayata bnu khalaf, wayaa abaa jahli bni hishaam. facaddada man kaana minhum fi lqaliib. wuxuu rasuulku calayhi salaatu wassalaam soo tiriyey qaar ka mid ahaa hogaamiyaashii mushrikiinta ee halkaas ku jirtay. kadibna wuxuu ku yidhi: hal wajadtum maa wacada rabbukum xaqa? si dhab ah ma u hesheen wixii uu rabbigiina idiin ballanqaaday? fa innii qad wajadtu maa wacadanii rabbii xaqa. anigu waan helay ballanqaadkii rabbigayga uu ii ballanqaaday. faqaala almuslimuun, markaas bay waxay muslimiintii ku yidhaahdeen: yaa rasuula allah, atunaadii qowman qad jiifuu? rasuulkii ilaahayow, ma waxaad la hadlaysaa qowm dhintay oo meydad noqday? qaala: maa antum biasmaca limaa aquulu minhum. wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wassalaam: idinku kama maqlid badnidiin waxaan odhanayo, walaakinahum laa yastatiicuuna an yajiibuunii, balse iyagu ma awoodaan in ay ii jawaabaan. meydadku waa ay maqlaan dadka nool kalaamkooda ama hadalkooda, balse ma awoodaan in ay radiyaan iyo in ay u jawaabaanba. wuxuu Camru bnulcaas radiyallahu canhu ka hor dhimashadiisa ahalkiisa ku yidhi: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. haddii aan dhinto yaysan iraacin mid qaylinaysa oo barooranaysa. markaad i aastaan oo aad ciidda igu geddisaan kadib, waxaad qabrigayga agtiisa ku sugnaataan qadar la eg inta neef geela la qalo, kadibna hilibkeeda laga qaybinayo, si aan idiin weheshado intaan ka arkayo waxaan kala kulmayo rususha rabbigayga.
dadka dhintay waxay weheshadaan kuwa nool, waxayna ku farxaan soo booqashadooda sida haddii ay adduunyada joogi lahaayeen oo kale. Waxayna dareemayaan farxadda ahalkooda, waxayna ka murgaan marka ay ahalkoodu macaasi samaynayaan. Wuxuu maydku farxaa isagoo maydadka ku dhex jira haddii uu ubadkiisu wax khayr ah sameeyo. Sidoo kale wuxuu isagoo maydadka ku dhex jiro ka murgaa oo uu aad uga xumaadaa haddii uu ubadkiisu macaasi sameeyo. Can Caaishata radiyallahu canha qaalat, waxaa ummuna Caaisha radiyallahu canha laga wariyey in ay tiri: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي مرأي أهيد habeenada ka mid ah oo uu rasuulku عليه الصلاة والسلام gurigayga ku sugnaa. انقلب فوضع رداءه وخلعا عليه فوضعهما عند رجليه. markii uu soo laabtay ayuu go'iisa dhigtay oo kabihiisana iska siibay, kadibna wuxuu dhigtay lugihiisa agtooda. wabasata طarfa izaarihi calaa firaashihi fattajac, kadibna daraf ka mid ahaa hoos guntigiisa intuu firaashkiisa ku fidiyey ayuu jiiftay. falam yalbath ilaa raythamaa danna an qad raqat, kadibna wuxuu joogay qadar uu ka malaynayay in aan jiiftay oo keliya. fa akhada ridaa'ahu ruwaydan wantacala ruwaydan wafataxa albaaba fakharaja thumma ajaafahu ruwayda. kadibna si tartiib ah intuu go'iisa u qaatay ayuu si tartiib ah kabihiisa u gashtay, kadibna albaabka intuu furay oo uu ka baxay ayuu si tartiib ah u soo xiray. fajacaltu dircii fii ra'sii wakhtamartu wataqnactu izaarii thumma inطalaqtu calaa ithrih. kadibna aniguna intaan dharkayga xirtay oo aan garbasaarkayga qaatay ayaan dabakacay raadkiisa. حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام إلا قبوره بقيع كيمد أو مد دل تاغنا. ثم رفع يديه 3 مرات كدبنا سدح جير أيو قعمه سكر قادي. ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت. kadibna waa uu soo laabtay, aniguna waan soo laabtay. wuu isboobsiiyey, aniguna waan isboobsiiyey. wuu soo rucleeyey, aniguna waan soo rucleeyey. wuu soo orday, aniguna waan soo orday. fasabaqtuhu fadakhalt, markaas baan intaan ka soo hormaray guriga soo galay. falaysa ilaa an atajactu fadakhal, markii aan saan u jiiftayna waa uu soo galay. فقال ما لك يا عائشة حشيا رابية. wuxuu igu yidhi, caaishay maxaa kugu dhacay oo aad la neeftuuraysaa? qultu laa shay, waxaan ku idhi waxba iguma dhicin. qaala latukhbiriinii aw layukhbiranni allatiifu alkhabiir. wuxuu yidhi, waad ii sheegaysaa ama waxaa ii sheegaya allaha latiifka ah ee og wax walba. qultu yaa rasuula allah biabii anta wa ummii. waxaan idhi rasuulkii ilaahayow, waxaan kugu furtay aabbahayga iyo hooyadayda. fa akhbartuh, kadibna waan u sheegay. faqaala fa anta asawaadu aladii ra'aytu amaamii. wuxuu yidhi, ma waxaad ahayd wixii madownaa ee aan hortayda ka arkayay? qultu nacam, waxaan idhi haa. falahadanii fii sadrii lahdatan awjacatnii. wuxuu xabadkayga igu dhuftay dhufasho i xanuunjisay. thumma qaala adananta an yaxiifa allahu calayka warasuuluh. kadibna wuxuu igu yidhi, ma waxaad u malaysay in alle iyo rasuulkiisu ay ku khiyaamayaan oo ay habeenkaad xaqa u lahayd kaa siinayaan dumar kale? qultu mahmaa yaktumu nnaasu yaclamhu allah. waxaan idhi, si walba oo ay dadku wax u qariyaan alle subxaanahu wa tacaala sooma oga. qaala nacam, wuxuu yidhi haa. qaala fa inna jibriila ataanii xiina ra'ayt. wuxuu yidhi, jibriil baa ii yimid xilligaas aad arkaysay. fanaadaanii fa akhfaahu mink. wuu ii yeedhay isagoo adiga kaa qarinaya.
فأجبته فأخفيته منك أنiguna waan ajiibay anigoo kaa qarinaya ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك mana uusan kuu soo geli karin maxaa yeelay waad dhar dhigatay wadanantu an qad raqadت aniguna waxaan u maleeyay in aad seexatay fakarihtu an awqadak waxaan necbaystay in aan hurdada kaa toosiyo وخشيت أن تستوحشي وحان كبقي إن أدعدلوتو فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم وحو جبريل إيغويري وحو ربي غاكو أمريا إن أد أهل البقيع أتكتو أو أد أدن بلاف دلبتو قلت كيف أقول لهم يا رسول الله وحي عائشة رضي الله عنها كتري رسولك إله يوسديبان كإراهدا قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون wuxuu yidhi waxaad tidhaahdaa nabadgelyo korkooda ha ahaato dadka daartan ku dhex jira ee mu'miniinta iyo muslimiinta ah alle ha u naxariisto kuwa inaga hormaray iyo kuwa dambeeyaba innaguna inshaa allah waxaan nahay kuwo idinka daba imaan doona rawaahu muslim xadiiskani wuxuu daliil u yahay oo uu caddaynayaa in dadka dhintay ay ina maqlayaan oo ay ina dareemi karaan nabiguna calayhi salaatu wassalaam lama uusan hadleen dad aanan maqlin hadalkiisa wuxuu yidhi xabiibkeena muxamed calayhi salaatu wassalaam ina alcabda idaa wudica fii qabrihi watawallaa canhu asxaabuh وإنه ليسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه addoonku markii la dhex dhigo qabrigiisa oo ay asxaabtiisu ka sii laabanayaan wuxuu maqlayaa jugjugta ama qajafta kabahooda markaas baa waxaa u imaanaya laba malag markaas bay fadhiisinayaan oo ay su'aalayaan ayuu yidhi sallallahu calayhi wasallam zamanku ama xilliguna marka loo eego dadka dhintay wuxuu u socdaa si xawli ah sida isagoon waxba ahayn oo kale ma dareemayo waqtiga socodkiisa iyo dheeraanshihiisa gaar ahaanna marka uu qofku ka mid yahay ahlul iimaanka sida ninkii uu alle subxaanahu wa tacaala 100 sano oofsaday oo kadibna intuu soo saaray uu ku yidhi kam labitht meeqaad hurdaysay qaala labithtu yowman aw bacda yowm wuxuu ku jawaabay waxaan hurdaayay maalin ama maalin barkeeda meydku waa sida qof hurda oo kale oo ma dareemayo waqtiga balse wuxuu dareemayaa nicmada iyo cadaabka nas'alu allaha naciima alqabri wanacuudu bihi min cadaabih wuxuu rasuulullaahi muxamed sallallahu calayhi wasallam maalin maalmaha ka mid ah cumar binu khataab radiyallahu canhu ku yidhi يا عمر كيف بك إذا مت فقاسوا لك 3 أذرع وشبرا في ذراع وشبر عمر بل كورن سيديباد نقون دونتا مركات دمتو oo dadku ay kuu soo qodaan god dherarkiisu uu la eg yahay 3 dhudhun iyo 1 taako oo ballaciisuna uu la eg yahay 1 dhudhun iyo 1 taako thumma rajacuu ilayka waghassaluuka wakaffanuuka waxannatuuka oo kadibna intay kuu soo laabtaan ay ku dhaqaan oo ay ku karfanaan oo ay ku carfiyaan thumma ihtamaluuka xataa yadacuuka fiih kadibna ay ku xambaaraan ilaa ay qabrigaaga ku دحديغان ثم يهيل عليك التراب فإذا انصرفوا عنك كدبنا انتي عيد كوغديان او اي كاسو لابتان أتاك فتاناي القبر منكر ونكير كدبنا اي كوي مادان لبدي ددك قبرغا كو فتنينيسي او كلا منكر ايو نكير أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف
kuwaasoo codkoodu uu yahay sida onkod ama gugac xoog badan oo kale, araggooduna uu yahay sida biriq wax dafaaya oo kale. fataltalaaka wathartharaaka wahawalaaka, markaas bay kaa nixinayaan oo ku argagax gelinayaan oo ku qalqal gelinayaan. fakayfa bika cinda daalika yaa cumar, sidee baad markaas noqon doontaa cumarow? qaala yaa rasuula allah wa maciya caqlii, markaas buu cumar radiallahu canhu wuxuu yidhi, rasuulkii ilaahayow, markaas caqligayga sooma lahaanayo? qaala nacam, wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ku yidhi, haa waad lahaanaysaa. qaala idan akfiikahumaa, wuxuu yidhi hadday sidaas tahay waan ku filanahay. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala kuwa isaga si dhab ah u rumeeyey ku sugaa qowlka sugan intay adduunyada ku nool yihiin iyo markay aakhiro tagaanba. wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala lumiyaa kuwa daalimiinta ah, wuxuu doono ayuuna alle sameeyaa subxaanahu wa tacaala. اللهم ثبتنا يوم تزل الأقدام، اللهم أمنا يوم الهول والفزع، اللهم ثبتنا وقونا واهدنا ولقنا حجتنا وأعنا يا ربنا وقونا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.